nimanka siyaasiyiinta baa yiraahdaa markay maagayaan dadka dumarka maxay ugu codayn waayeen daanu dumar kaliya uma sharaxnayn rag iyo dumar bad bulshada baanu sharaxnayn anigu qodobka ah dumarku ay soo codeeyaan already waa diidanahayba sidaynu doonayna qofkan aan doonayna inuu hogaamiyaheenu sidaynu doonayna inuu noqdo anigu markaan arko gabadh xasharaxan qalbigaan ka raaca laakiin kuma filayna qalbiga shacabkaaga tumo sidan yaanay habla dambe inaanay ku gelin baan ayaan doorashada ku talin lahaa noocan haday tahay waxay moodaa dumarku inay badan ayagu in badan isku dhagan yihiin cagaha ayagu is haystaan sideebanu intaan ugu soo celino qofka Soomaaliga subconscious mind-kiisa u gelin karnaa inay caadi tahay oo gabadhu ay awoodi karto oo kartina u leedahay inay bulsho hogaamiso marka qabyaalad baa lagu aasaasay xisbiyadii baa qabyaalad galay dawladii ku guuleysatay baa qabyaalad gashay waa xal baleeg waxa weeyaan iyagu xal bay u arkayeen laakiin xalku ma aha inaan reer hebel oo qaawan meesha keenee ma la saadaalin karaan inay dumarku ururada ay sameynayaan ay furayaan ay ku guuleysan karaan maadaama aynu soo aragnay dhibaatada ina haysataa waxa weeyaan weli waxa jira sharaxan ah gabadhu madaxweyne ma noqon karto waayo marka sidaynu u furan karnaa urur ka duwan kuwa kale oo rag iyo dumar baynu wada leenahay oo contribution-ka la wada bixinayo kaadarka xisbigu leeyahay aan ku dooranay maxaad horteeda kaga duwantay saddexda sii fadhiya saddexdan iyo waa bila rajo male marka runtii anigu waxyaalahan aad uga xumaado waxa kamida de commission-ku baan tiradayda ka maqlay oo inuu Muuse halkaas saaray buu yiri fartiina qaniine haddii ay gabadhu samayso urur siyaasadeed maxaad isleedihiin caqabadahan way ka hor imanaysaa runtii iska dooro oo ama codkaaga ama lacag siiso ama reer hebel ku dooro mooyaane ma fahansana waxay u dooranayaan maxay tahay ama dawladda hoose ama dawladda dhexe ama baarlamaanka runtii ama guurta hadduu ha noqdo because iyaga saameyn kuma yeeshaan